السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مركلة إيو لبرو. مانتنا وحنو وضبرانينا scientific notation. هذا scientific notation محايتاي. Scientific notation. Scientific notation أو نصو قابسن دونو SN. scientific notation. Scientific notation محايتا. waxaa laga yaabaa inaad aragtay dhowr jeer lambaro aad u weyn ama lambaro aad iyo aad u yaryar. haddaba scientiska iyo dadkan culumta sayniska bartaa oo scientiska ayaa waxay samaysteen hab ay u qoranayaan lambaradan aadka u weyn, habkaasoo u sahla si yaro fudud in loo qoro lambaradan aadka u waaweyn ama aadka u yaryar. For example, lambarada aadka u waaweyn ee ah 3,000 oo kale imika dad aragtid oo kale waxay u qoraan hab fudud oo sidan oo kale 3 times 10 to the power 3 ayay u qoraan. waxaan doonayaa in yaroo xasuusina la baro waxaan ugu talagalnay ardayda wax ku soo baratay ama ku dhalatay ama ku soo kortay qurbaha ee dib ugu noqday waddankoodii hooyo. marka haddaad weliba khaasatan dadka kuwa ka taga meelaha lagaga hadlo luqadda ingiriiska, haddaba haddaad kelmado ingiriis oo ku soo daraa casharadan oo kale aad ka aragtid sidaa ula soco waxaa loogu talagalay ardaydaas. okay, 3,000 kaas aad arkaysid ama 300,000 oo kale lambarkaas wuu sii dheeraanaya ama 3 billion ayuu noqonaya, waa lambar aad u weyn. haddaba scientisku maxay samaysteen si yar oo hab yar loo qoranayo oo sahlan oo ah 3 times 10 to the power of 5 ayuu kaasina noqonaya. hadhow baynu ka baran doonaa waxaan ay kala yihiin 3gan iyo 10kan iyo waxaan halka ka yimaadeen oo dhan iyo 3daa dusha saaran iyo 5kaa dusha saaran oo kale. lambarada imika tusaale ahaan oo kale aad u yaryar oo kale ee imika uu ka mid yahay 0.00056 oo kale, isagana waxay usoo oo halkaas aad arkaysa inuu 0 dee isaga dhow yahay oo wixiiba 0 iska noqday. haddana ama uu kasii dheeraan karaa 0.000 fara badan baa geli kara. haddaba habkan fudud ay u qortaan baa waxa weeyaan isna waa 5.6 times 10 to the power ayuu noqonayaa 4 oo kale, marka oo minus ah. marka sababtu minus u noqday iyo waxaasoo dhanna hadhow baynu isaga iman doonaa. haddaba habkan muxuu yahay marka? habkan scientific notationka ee SN aan usoo gaabanay SNN, habkaasi waa hab noocmee? waxa weeye definitionkiisa ama sharxaadiisa waxay noqonaysaa waa a times 10 to the power of n. eeday maxaa tahay marka? e waxa weeye waa any number oo u dhaxeeya 1 ilaa iyo 10 ayuu numberkaas u dhaxeeyaa. marka halka waxaa ka cad inuu yahay number waa ilaa iyo 1 2 3 wuu noqon karaa, 4 wuu noqon karaa, 5 wuu noqon karaa, ilaa iyo 9, laakiin ma noqon karo marna 10kaa ma gaari karo. marka ama wuxuu noqon karaa 1 2 3 all the way to 9. waxaa kaloo ku jirta meesha lambarkaas eeda ahi wuxuu kaloo noqon karaa, halkaa eeda lambarku noqon karaa waxa weeyaan waa decimal buu noqon karaa ama lambaro jajab ah. lambarada jajabkaa sida 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 9 all the way 9.1 9.2 all the way to 9.9. laakiin 9.9 markuu xabadaas uu dhaafo 10 ma noqon karo, marka waa 9999 wuu istaagi karaa, marka taana uu noqon karaa. marka maxaynu ogaanay definitionkii uu yahay a to the power of n. n a maxaa tahay marka? n maxay noqonaysaa marka? n halkana n baynu ku qeexaynaa marka. n-tanna maxay noqonaysaa? n-tanna iyaduna wax kale maaha, waxay tahay waxay inoo sheegaysaa iyaduna ama ina tusaysaa inta jeer ee dhibic lambarka dhibicdiisu ay ama midig u socotay ama ay bidix u socotay. inta jeer meesha duntaa u socoto ama bidix bay u soconaysaa ama midig bay u soconaysaa, laakiin waa inta jeer dhibicdu socotay. tusaale yar kooban oo degdega haddaynu eegno waxa weeye ka soo qaad 3,000 imika ka soo qaad 3,000 lambarkaas waa maxay marka? 3,000 lambarkaas wuxuu noqonayaa waxa weeyaan waa
dhibicda maxaynu ognahay halka ugu dambeeyay ayay ku taalaa dhibicdu markaa 3,000 markaa dhibicdu halkan comma ku yaala laakiin dhibicdu usually waxa weeye ma muuqato lama qoro laakiin decimalku waxa weeye ama dhibicdu waato halka ugu dambeysay ku taala marka 3,000 haddaynu doonayno numberka inaynu qoro habkaas waxa weeye waa inta jeer ay socoto ilaa intee bay soconaysaa markaa waxay soconaysaa ilaa iyo dhibicdu ay ka gaarayso number aan zero ahayn ay ka gaarayso marka lambarkaas waa maxay marka halkaas waa maxay waa 1 2 3 saddex jeer bay socotay marka halkaas ay maraysaa marka 3 halkaas ay maraysaa marka lambarka 3 times 10 to saddexda jeer marka saddexda jeer bay socotay hadday tahay marka 0.0003 na imisa jeer bay soconaysaa marka waa inay halkaa tagtaa oo lambarka xaguu ka xigaa marka aan zero-ga ahayn wuxuu ka xigaa midigtii ka xigaa marka midigtii u soconaysaa waa inta soconaysaa marka dhibicdi 1 2 3 4 jeer bay socotay marka waa 3 times 10 to the 4 oo minus mar labaad waynu soo noqon doonaa sida uu socotiyo systemkan ee waxaad u baahan tahay weliba inaad fahanto halka ah a to the power n inay eeduna tahay lambar u dhaxeeya in 1 ilaa iyo 10 entuna ay tahay lambarka inta jeer ay dhibicdaas aad move garaysiinayso ama how many times you move dhibicda marka haddaad maxaa ahayto lambarku uu weyn yahay waxaad kaloo xasuusanaysaa lambarku hadduu lambar weyn yahay sida kan oo kale entu waxa weeye n waa positive ayay noqonaysaa marka waa positive you see waa plus lama qoro hadduu lambarku aad u yahay yar yahayna n waa negative intaana xasuusno haddaba tusaale ayaynu imikana tusaalayaashii baynu gelaynaa waxaynu ku bilaabaynaa from scientific notation ama scientific notation waxaynu u bedeli doonaa ordinary form from scientific notation to ordinary form tusaale ahaan haddaynu soo qaadano markaa scientific notationka ah 3.5 times 10 to the 4 waxaynu doonaynaa inaynu si ordinary form u qoro 4 maxay inoo sheegaysaa 4 waxay inoo sheegaysaa 4 waa empty marka xasuusnow definitionku waxa weeye waa a times 10 to the n marka eedaasi waa inay ahaataa waxa weeye waa 1 to 10 ma u dhaxaysaa way u dhaxaysaa marka way baas garaysay waa baas n waa maxay waa integer ma tahay ama negative ama positive yes marka taasna waa baas garaysay okay intu maxay noo sheegaysaa waxay noo sheegaysaa marka inuu numberkani number inta jeer ee decimalku aad socotay maadaama uu numberkani markaa yahay 4 oo plusa waxaad u socotay markaa to the right waa plus positive waa to the right marka hadduu numberkaasi yahay positive always remember positive waa right ayay u socotay marka 3.5 marka decimalka oo halkan ah ayaad u soconaysaa 4 marka every move na waxaan ka soo qaadaynaa arrowgaas isticmaalaysaa marka one move one arrow halka from here to 1 that's 1 marka halkaas dhibicda 1 haddana from here to another 1 haddana from here to another 1 waa imisa arrow baan rabnaa 4 arrow 1 2 3 1 2 3 4 arrow marka arrowgan koobaad 5 baaba noo dul saaran kuwan laakiin waxba dul saarna waa the easy way the simplest explanation baan idin sheegaya marka maadaama waxba dul saaran 0 dul saaro marka 0 0 therefore 3.5 times 10 to the 4 marka loo qoro ordinary formku waa maxay waa 3 5 marka waa guuraysa maaha 0 0 0 halkaa waa ku qorantaa dhibicdii ama kuma qoran kartid uma baahnid marka waa intaas wey iminkana waxaynu soo qaadanaa isla number aad u yar kii hore aan soo qaadanay muxuu ahaa kani wuxuu ahaa number aad u weyn buu ahaa soo maahan haddana number aad u yar baynu soo qaadanaynaa oo ah isla scientific
scientific notation to ordinary form oo laakiin number aad u yar small number okay numberka smallka muxuu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa let's say 7.2 times 10 to the minus 3 because waxaanu nidhi negative hadduu yahay waa very very small number ayuu yahay marka lambarkan waa very small number intaas negativeka waxay noo sheegaysaa waa very small number haddaba sidee baynu tan ugu qori karaa waxaynu xasuusnahay definitionkii ahaa 10 to the n eedii waa baasay because numberku wuxuu u dhexeeyaa 1 to 10 marka halkani 9 may gaarinba I mean 10 may bay gaarinba waa wax ka hooseeya 10 waa ilaa iyo 1 to 9 oo kale waana decimal that's okay oo jajab buu noqon karaa lambarkii intani maxay noo sheegaysaa intani waxay noo sheegaysaa waa inta jeer number ku socday maadaama numberkani uu yahay number negative maxay inoo sheegaysaa waxa weeye negative maxay inoo sheegaysaa numberku xaguu socday left baa loo soconayaa marka left ayaa loo soconayaa hadduu negative yahay okay marka 7.2gii ayaynu halka ku qoraynaa 7.2 taasaynu soo qaadanaynaa right sideedaan soo qaadanaynaa marka left baynu soconaynaa marka tan oo arrowgeeni baynu isticmaalaynaa marka halkaas from here ka bilaabo marka 1 marka halkaasuu dhibicda ku dhacso maaha waa imse laakiin 3 baynu u baahannahay 2 3 maadaama markaa arrowga koobaad 7kaaba noo saaran arrowga labaad waxa ma saara 0 baan saaraynaa arrowgana 0 baan saaraynaa dhibicdana halkaasay ku dhacday marka hadda dhibicda waa muujinaynaa markan remember this time dhibicda necessary maaha in la muujiyo because waa ugu dambaysa waa lambarka ugu dambeeya 0ga ayay ka dambaysaa right waa xagga ugu dambeeya ayuu lambarka ay ka xigtaa marka dhibicdan wax muhiima midigta kama xigaan right oo lambarrada aynu u baahannahay oo dhan bidixda xigaan marka wax midigta xigaan ma jiraan laakiin halkan dhibicdan lambarrada aynu u baahan oo dhan midigtay xigaan marka maadaama midigta xigaan dhibicdii waa muujinaynaa horteedana 0 baynu ku muujinaynaa marka therefore numberku muxuu noqonayaa 0.0072 because u dhaqaaqan remember so marka intaasoo answerka noqonaya waa ka markuu ahaa scientific notation to ordinary form saas ku helaysaa tusaalayaal fara badanna aad u dhigan kartaa iminkana waxaynu isla eegaynaa inagoo ka imanaynaa ordinary formka oo u soconnaa dhanka iyo dhanka scientific notationka marka tusaale ahaan haddaynu soo qaadano 56,000 waxaynu doonaynaa inaynu u bedello formka scientific notationka ee u qormaya sidaas oo kale okay halkan waxaynu ognahay dhibicdu inay taallo halka ugu dambaysa lambarrada marka waxaynu marka ugu horeysa stepka ugu horeeya waxa weeye lambarradaad eegaysaa lambarkan waa imise lambarka koobaad waxa weeye waa 5 ee lambarrada aan 0 ahayn ka koobaad waa 5 ka labaadna waa 6 dhibicdan halkaasi taallaa lambarka ugu horeeya dhibicdan waa inaad soo move garaysaa lambarka ugu horeeya ee aan 0 ahayn waa inaad dhigtaa meesha uu yaallo markaa lambarka ugu horeeya aan 0 ahayn hortiisa ayaad dhigaysaa marka dhibicdaas soo move garanaysa marka imise jeer bay nagu qaadanaysaa inaynu move garano dhibicdaas okay let's rewrite 56,000 halkaasay dhibicda taallaa soo maaha marka waxa weeye 1 arrow 2 arrow 3 arrow 4 arrow dhibicdii marka halkaasay timi arrowga waa kuwa mar walba ay soo raacaan arrowga waxaad u aragtaa ama uga fakartaa inay tahay doonta ay dhibicda soo raacayso ee marna midigta u raacayso marna bidixda u raacayso marka iminkana waa waxaynu soo soconnay waa 1 2 3 4 waa 5 ilaa intaynu ka imanaynay numberka ugu horeeya ee aan ahayn 0ga oo ah 5 marka 5.6 times 10 4 times ayaynu u soo soconnay bidixda marka waa 4 times inta number of the arrow soo socday maadaama numberkan number weynaa ahaa marka it's gonna be positive kaasay joogaysaa marka taasina waxa weeye waa numberka weyn
marka sidaa lagu sameeyo iminkana lambarka waxaanu ka dhigaynaa lambar aad iyo aad u yar oo aynu haddaynu haysano kaba soo qaad 0.00089 waxaan doonaynaa inaynu formkii u qorro mar labaad a to the 10 to the n formkaas oo ah scientific form maadaama lambarkan aad iyo aad u yar yahay oo dee 0.00089 oo zero kale iska yahay zero sahlan inaynu qoraynu doonaynaa haddaba sidee maxaynu ku samaynanaa marka ugu horeysa waxa weeye decimalka waynu aragnaa marka iminka lambarku number weyn oo kii ugu dambeeyo kale laba odhan karo numberkan waxa weeye halkaasu decimal ku yaala decimalkaas ama dhibicdaas ayaynu u dhaqaajinaynaa ilaa inta aynu ka gaarayno lambarka ugu horeeya ee non-zeroga ah waa kaas waa 8ka marka 8kaasaa ugu horeeya marka non-zeroga waa kaasa waa 8kani waa first numberka ee non-zeroga ah marka sidee baynu ku gaadhnaa marka halkan 0.00008 halkaasaynu doonaynu geeno dhibicda geeno waa halkaa bartaa marka arrow baynu kusoo qaadanaa arrow waxaanu nidhi waa doonta si uu decimal kusoo raaco tooraalkan buu kasoo raacaya halkaasu yimi markaa zero hortiisu yimi dee doonta labaad soo saar doonta saddexaad soo saar halkan bay keenaysaa doonta afraad oo halkaa keenaysa inaynu keenno marka waxay 1 2 3 4 waa afar doonyood wey markaa waa afar waa 4 markaa maxay noqonaysaa 8.9 halkaasuu iminka tegey times 10 arrowgina waa maxay waa 4 maadaama numberku uu aad u yaraa markaas oo number uu ahaa small a very small number maxaynu ognahay inay tahay negative okay, small is negative big positive see numberku waa big halkan markaynu dib u eegno big positive ku xasuuso markaad ordinary ka tegaysid ee aad u tegaysid aad rabto number ordinary ah ordinary form to scientific waxaad xasuustaa big waa positive enter n waxa weeyaan big number wuxuu la mid yahay positive from ordinary to scientific ntu waxay noqonaysaa waad oranaysaa markaa halkanna waxa weeye small number waa negative taana xasuusno hadda waxaad taqaanaa sida loo qoro ama loo akriyo big numberska iyo small numberska ee scientific notationka iyo sida la isugu kala bedbedelo waxa ku hadhay waa maxay intaas way ku soo gaadhay waxa laga rabaa waxa weeye inaad halkaa subscribe-ka aad saarto like-ta aad comment-kaaga iyo wixii aad maskaxdaada ku jirtana aad comment ku qorto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inuu iyo mar kale iyo la baro